السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواد صاحب يا الموقال عصب هدي أدنو عصب تاجنا سبسكرايب صار جنبلالك فرصة كوكو دان موقال والبركة عن سوق لنا هدي أتورينا اللي جوكتنا موقالك لايك صار شير جريس تدبنا وجارو واتا كسو دواد صاحب يا المركل موقالك ما أنت موقالك نوح قصيا سدها قاب ومهمة قاب كوكوات قاب كله بدش اللوقدة قاب كلابات قاب كله بدش فونت زايسكا qaabka saddexaad qaabka loo sameeyo contact information waa tahay ku soo dhawaada saaxiibayaal waxaad u baahan tahay markaas shaqadaas u qabato inaad soo furato setting laba qaab ayaad u gali kartaa qaabka koowaad in application-ada ka raadiso halkaas aad ka gasho qaabka saddexaad inaad telefoonka shaashada soo jiido kadibna halkaas aad ka gasho almuhiim waxaad soo furanaysaa setting-ga kadib waxaad raadinaysaa meel ay ku qoran tahay lock screen waatana kadib waa ku dhufanaysaa kadib hoos ayaad fiirinaysaa waxaad raadinaysaa meel ay ku qoran tahay contact information waxaad raadinaysaa meel ay ku qoran tahay contact information ku dhufanaysaa kadib contact information hadan waxa ugu qoran Usmaan yani contact information shaqooyinka qabto waxa kamid ah yani waxa loogu talgalay yani qofka yani maraa suuxi karta oo kale marado wadada socda yani dhibaato qabsan karto oo kale ina numberkaaga saarato oo kale yani numberka ehelkaaga ina saarato oo kale si uu lagaala soo xiriiro oo kale yani number aad ku qoranaysa halkan contact information kan kadib numberka aad ku qorto ama wixii aad ku qorto magac ha noqdo ama number ha noqdo telefoonka marka loo geliso yani kor soo fuulmi doono hadhow yani number gelisay kadib dooyna taabanaysa telefoonka markii loo geliyo kadibna yani kor soo fuulmi doona hadhow marka telefoonkaaga dadka agaaraas joogaan waxa u fududaanaysa inay kala soo xiriiraan yani ehelkaaga numberka aad meesha halkan ku qortay kadib hadan waxa ku qoranaa magacayga Usmaan adigoo dhow number saarad doonta si hadhow ehelkaaga lagala soo xiriiro waa taanad Usmaan iskaga qoranaya kadib dooyna taabanaysa sidaas aad u sameeysan kartaa contact information qaabka labaad waxa weeye qaabka loo bedesho luqadda kadib ayadana isla halkan weeyaan waxa raadinaysa meel ay ku qoran tahay general waatana kadib waxa ka dooranaysa meel ay ku qoran tahay language waa kana luqadda ayagana yani hadda waxa ay saaran anigu English ay saaran hadii aad rabto ina Arabi saarato ku dhufanaysa kadib abalaya taawanaysa oo isbedelaysa yani English ku isku bedelay Arabi yani labadaba marabtid waxa rabto luqadda kale aad language taawanaysa kadib luqadda aad rabto halkan kala soo bixaysa sidaas ku saar kartiin qaabka saddexaadna waxa rabta ina bedesho yani font size-ka kadib aydan hadana waxa raadinaysa meel ay ku qoran tahay display telefoonkaaga hadana halkan ka raadinaysa meel ay ku qoran tahay display waatana display waa kana kadib waxaad raadinaysaa hoos fiirinaysaa meel ay ku qoran tahay font size and style halkaas taabanaysaa kadib waa u jeedaa waa kana fontiska kadib waxaad dooranaysaa yani hadii aan sharxad kooban aan ka bixiyo font size-ka halkan wuxuu ku leeyahay farta waaweynayso ama yareeyso oo ku leeyahay ma garatay hadii halkan aan hadda fiiri telefoonkii yani fartiis wuu isweyneynaya yani hadii aan ku celiyo fartiis u jeedaa isweyneynaya hadii aan ku celiyo meesha ugu dambeysa aan gaarsiiyo telefoonka fartiis dhan waaweyn noqonaysa marka qiyaas adigu de noocaad rabta ka dhiganaysa inaad afar geysanaya afar fiican halkaas geysanaya okay kadib waxaad u baahan tahay marka inaad si aad u bedesho inaad taabato font style halkaas taabanaysa hadan waa u jeedaa yani saddex qaab uu leeyahay kuwa kale waa soo degsi karta fonts kale ana marka hadda waxa geysanaya qaybta labaad halkaas ku bedeli kartaa font size taabanaysa saddexdana ku shaqeynaya marka adigu saddexdan mid kamid ah dooranaysa hadii aad jeceshahay yani font size kastan shaqadiisu waxay tahay yani telefoonka qoraalada isbedelayo nooc aad rabta macnaha aad ka dooranaysa marka dadka dhexda dooranaya kaas ay saarnaanaya kuwa kale hadii aad rabto waa soo degsan kartaa download waa soo degsan kartaa aad baad u maasantiin saaxiibayaal hadii aad muuqaalka waxaad ka faa'iiday share garay oo asxaabtaada kale u share garay muuqaalkana like saar ha ilaabin haduu ilaahay raadana aad share garayso aad baad u maasantihiin مال وناكسن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.